qarshaweeye qalbigu armuu naga qarxaa aad ayaanu jeclaa inaan dhegaystayaal heestaas idiin dhammeeyo halkaad nagala socotaana waa hoyga Soomaalida Holland waqtiga ayaa nagu sumayn waxaan filayaa xasan barnaamijyadu way badan yihiin waxaana inagu soo aadan barnaamijyo kala duwan bal horeeye maxaa inoogu xiga imika heestan ننقل واحد نوحي أحمدو مانت استوديو أنو كسو دوينو بالمدحي دلمر ونال جوغا أسد كسو دوينو لنا ومحسنتي راديو دلمر أمستردام واتهاي ساعد برتمها يربوحا اتلامي ساعة الدبادي إشاري 8 دقيقة تاريخ دمانتو والسقال إلى باتنكي أكتوبر ومالين 4 waxaana la soo gaaray xilligii aan iisoo gudbin jirnay war wixii adduunyada inaga soo gaaray maanta waxaa diyaar noogu ah Axmed Shalle kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel ka soo joogtaanba halkani waa hoyga Soomaalida Holland waxaad ku soo dhawaataan war wixii maanta naga soo gaaray adduun weynaha 19 qof ayaa ku dhintay in ka badan 40 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii saddex qarax oo kala duwan ay gilgileen magaalada Hargeysa ee xarunta Jamhuuriyadda Somaliland 19 qof oo ay ka mid yihiin xogayaha madaxtooyada Somaliland Daahir Cali Ciid iyo la taliyaha ciidanka madaxtooyada Somaliland ayaa ku geeriyooday in ka badan 40 qofna way ku dhaawacmeen kadib markii saddex qarax oo kala duwan saaka barqadii abaara 11 subaxnimo lala beegsaday madaxtooyada Somaliland safaaradda Itoobiya ee magaalada Hargeysa iyo xarunta hay'adda UNDP ee magaalada Hargeysa guud ahaanba waxaa gariiray saqafyada guryaha ku yaala magaalada madaxda Somaliland waxaana la arkayay dadweyne fara badan oo hordhooban iridda isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa qaraxyadan maanta ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee caynkooda ah oo lala beegsado goobo ku yaala magaalada Hargeysa oo ammaankeedu ahaa mid sugan waxaa dhammaan kor loo qaaday amniga guud ee magaalada Hargeysa iyo gaar ahaan goobaha ay ka dhaceen qaraxyadu iyadoo heegan la geliyay ciidamada ammaanka waxaana bilaabmay oo socda baaritaano ay mas'uuliyiinta xukuumaddu ay qaadeen kuwaas oo lagu soo ogaan doono cidii ka dambeysay qaraxyadan aan kala sooc lahayn qaraxyadan ayaa ku soo beegmay iyadoo gobolada badan oo ka tirsan Somaliland ay ka socoto diiwaangelinta dadka ka qaybgalaya doorashooyinka guud ee Somaliland oo lagu wado in ay dhawaanta dhacaan kuwaas oo ay dadka reer Somaliland ku dooranayaan cidii hoggaanka dalka u qaban doonta sanadaha soo socda waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in magaalada Boosaaso ay ka dhaceen iyana laba qarax oo aad u xoogan kuwaas oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa lama garanayo cid si rasmi ah uga dambeysay qaraxyadan magaalada Hargeysa iyo Boosaaso toona lamana xaqiijin wali in ay wax xidhiidh ah leeyihiin qaraxyada Hargeysa iyo Boosaaso waxa warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariye Shiina Cilmi Kaahin dalka Mareykanka waxaa dhawaanta gacanta lagu dhigay 2 nin oo dhalinyaro ah oo qorsheynayay in ay qudha kaga jiraan Senator Barack Obama oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadka dalka Mareykanka labada nin oo arbacadii ina soo dhaaftay gacanta lagu dhigay iyagoo doonaya in ay shirqoolaan ama kharajiyaan waqtiyada uu qabanayo isu soo baxyada loogu jiro ololaha doorashooyinka madaxtinimada ee dalkaasi Barack Obama oo ah musharaxii ugu horeeyay ee madow ah ee isku soo sharaxa jagada madaxweynenimo ee dalka Mareykanka ayaa ka hadlay hawlgallada isaga lagu kharajinayo waxaanu sheegay in ay arintani tahay mid aad u foolxum maadaama aan isku soo sharaxayo aayaha iyo mustaqbalka dalka iyo shacbiga ku dhaqan Mareykanka oo kaliya ma aha markii ugu horeysay ee lagu dhaqaaqo tallaabooyin noocan ah oo la doonayo in lagu kharajiyo musharaxa xisbiga dimuqraadka dalka Mareykanka Senator Barack Obama labada nin oo ka tirsan cadaanka xagjirka ee naasiyiinta lagu magacaabo ayaa booliska dalka Mareykanku gacanta ku dhigay kadib markii gaari ay wateen laga helay hub iyo waxyaabaha qarxa siiba bambooyinka gacmaha lagu tuuro
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdi Axmed Farax ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya kadib markii lagu helay isagoo wata bastoolad. xildhibaan Cawad Axmed Xasharo oo ah gudoomiyaha guddiga warbaahinta baarlamaanka Soomaaliya ayaa laanta Soomaaliga ee BBC-da u xaqiijiyay xadhiga xildhibaanka, waxaanu sheegay in maalintii labaad uu xabsiga ku jiro xildhibaan Cabdi Axmed Farax. xildhibaan Xasharo ayaa intaas ku daray in arrinta xildhibaanka ay ku howlan tahay safaaradda Soomaalida ee Kenya, waxaanu rajeeyey in la soo dayn doono xildhibaanka bacdama ay xidhiidh wanaagsan ka dhexeeyo dowladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo dowladda Kenya, waa sida uu hadalka u dhigay. xildhibaankan ayaa noqon doona xildhibaankii ugu horreeyey ee isagoo hub wata ay qabtaan ciidamada ilaalada garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta, isla markaana xabsiga la dhigo, waxaanay tallaabadani sharafta ka xayuubinaysaa qiimaha ay leeyihiin xildhibaanada dowladda ku meel gaadhku. xarigga xildhibaanka Soomaaliga ah ee hubka lagu helay ayaa ku soo beegmay iyadoo xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxda sare ee dowladda ku meel gaadhku ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi, halkaas oo ay uga socdaan wadahadallo 3 maalmood soconaya oo ay leeyihiin madaxda urur goboleedka IGAD. magaala madaxda dalka Kenya ayuu fadhi uga bilaabmay wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka IGAD oo ka wada xaajoon doona xaaladda murugsan ee Soomaaliya. wasiirada arrimaha dibadda ee wadannada IGAD ayaa la kulmaya xubnaha golaha baarlamaanka Soomaaliya oo lagu marti qaaday shirka Nairobi. howlaha shirkan oo uu gudoominayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Sayun Masfin. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay kala soo baxayso shaqaalaheeda rayidka ah ee jooga magaalada Goma oo ku taalla bariga dalka Congo kadib markii ay ku soo dhowaadeen magaalada Goma fallaagada Tutsiga ah ee uu hogaamiyo General Laurent Nkunda. wararka ayaa intaas ku daraya in dadka rayidka ah iyo askarta dowladda ee gobolka waqooyi bari Kivu ee dagaaladu ay ka socdaan cagaha wax ka dayeen una qaxeen si xad dhaaf ah iyagoo cabsi ka qaba fallaagada uu hogaamiyo General Nkunda. dadka rayidka ah ee gobolka ayaa si xad dhaaf ah magaalooyinka uga qaxaya. qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad cadhaysani ay boobeen kolayo baabuur ah oo siday raashin ay qaybinaysay qaramada midoobay. wararka laga helayo magaalada Goma oo ku taalla gobolka waqooyi bari ee North Kivu ayaa lagu xaqiijiyey in ay soo gaadheen qaybihii ugu horreeyey ee ka tirsanaa fallaagada Tutsigu ay leeyihiin. General Laurent Nkunda ayaa ku adkaysanaya inuu weli difaacayo dadkiisa oo ah dadka laga tirada badan yahay, kuwaas oo uu sheegay in ay xasuuq ku wadaan hadhaagii dad uu ku tilmaamay in ay geysteen xasuuqii ka dhacay Rwanda oo dalka Congo gudihiisa ka sii wada howlahooda. hase yeeshee dowladda Congo ayaa ku eedaysay dalka deriskeega ah ee Rwanda in ay wado qas iyo jahwareer si ay uga faa'iidaysato macdanta dhulka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. kulankii uga socday baarlamaanka ku meel gaadhka Soomaaliya iyo madaxda IGAD ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi, iyadoo dadkii kulankaas ka hadlay uu ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Meles Zenawi oo sheegay in aan la odhan karin Soomaaliya waxaa ka jira dowlad ku meel gaadha. kulankan oo maanta u muuqday mid xasaasi ah isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxweynayaal ka socda dowladaha urur goboleedka IGAD ayaa duhurnimadii maanta ka furmay xarunta waddanka Kenya. waxaana kulankan mas'uuliyiinta ka qayb galay ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Meles Zenawi, wasiirkiisa arrimaha dibadda Sayun Masfin, madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki, wakiilo iyo madaxweynayaal ka socda Afrikada Bari, wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Ahmed Ould Abdallah, kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Jendai Fraser iyo mas'uuliyiin fara badan. furitaankii shirkan ayaa waxaa hadalkaas ka jeediyey qaar ka mid ah madaxda urur goboleedka IGAD, kuwaasi oo ka hadlay nasiib darrada ku habsatay Soomaaliya iyo itaaldarrida ku dhacday madaxda dowladda ku meel gaadhka, taas oo awoodi kari weyday ama hirgelin kari weyday waxyaabihii loo doortay. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay ayaa waxay sidoo kale madaxda dowladda ku meel gaadhka ku eedeeyeen in gebi ahaanba ay ku fashilantay in ay ka shaqeeyaan waxyaabihii loo dhisay dowladda ku meel gaadhka ah.
halkaad warkaa kala socotaana dhegaystayaal waa hoygii Soomaalida Holland oo aad ka dhegaysataan barta internetka ee cinwaankeedu yahay dalmar.org. waxaad kaloo naga dhegaysataan mawjadaha FM-ta ee Amsterdam 99.4 megahertz. warkaygii maantana intaas ayuu inoogu eegyahay.